wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa xafiiskiisa kula kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna ka wada hadleen dib u habeynta lagu sameynayo ciidamada qalabka sida wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in ciidamadu ay u kordhiyeen lacag gaaraysa $70 laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadkan aynu ku guda jirno ee 2020 dib u habeynta hay'adaha amniga ayaa inoo sahlay guusha wadajirka ah ee heer gobol iyo heer dawlad guushan dib u habeynta ah waxa uu heliyaa koror dhan $70 oo mushaarka ciidanka ah oo aan bilownay bixinteeda laga bilaabo January 2020 ciidamadeena waa kuwa aad ugu qalma qadarinta iyo taageerida joogtada ah ee aynu garab istaagno ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo kulan gaar ah magaalada Muqdisho kula qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya Yuusuf Maxamed Axmed Galmudug TV